banaanbaxay soo qabanqaabin ardada dhigatay iskuulka dawladda Tukro oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Buuhoodle ayaa maamulka Puntland ugu baaqay inay cadaalad horkeenin dadkii tacadiga u geystay Caashe Eliya waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxaan maanta halkan u taaganahay inaan dareenkayaga iyo shucuurta aan ku muujino dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee lagu kufsaday naftana lagaga jaray walaasheen Caasho Eliyaas Aadan ugu horeyn waxaan u tacsiyeenayaa guud ahaan hablaha Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii ay ka baxday Caasho Eliyaas Aadan oo ay dileen dhagarqabayaal caadaystay in ay mar walba Soomaaliya ka dhacdo dhacdooyinkan oo kale haddana aan waxba laga qaban oo aan cadaalad loo keenin waxaan maanta halkan u taaganahay annagoo ah maamulka iskoolka Daahir Guula Primary and Secondary School oo ku yaala magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn in aanu muujino dareenkayaga iyo sidii aanu uga xumaanay ama ay noo dabaqday dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxa weeye banaanbax loogu soo agaasimay ama loo asteeyay in loogu tacsiyeeyo dhammaan hablaha Soomaaliyeed iyo ummadda islaamkaaba gaar ahaan Caasho yar oo nafteedii ku weyday iyadoo jirdil iyo foolxumo siyaadaha loo raaciyay gobolka Mudug asbuucyadiina soo dhaafay dhammaan laamaha ammaanka maxkamadaha madaxda kala sarreysa ee dawladda Puntland arrinta noocaas ah inay waxa kaga aadan ee waajibaadkooda ay gutaan qofkii dambiilaha ahaa wuxuu gudan karay ama geysan karay buu geystay lama harin wax dambiya baa la oran karaa qofka gabadha ama dadkii gabadha gacanta ku dhigay marka waxaa la rabaa waxa kaga aadan arrinta noocaas ah dawladda Puntland laamaheeda kala duwan inay gutaan maamulka Puntland oo gacanta ku haya magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaan ka codsanaynaa in cadaalad loo keeno sida bahalnimada ah ee wuxuushnimada ah ee xaqul insaanka iyo xaqul aadamiga waxa weeye ka baxsan waa dil la qaybsanayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun faraadsan yihiin oo ay qiirada u muujinayaan gabadhii Caasho Eliyaas Aadan ee falka foosha xun lagu kacay runaantii Caasho mudaharaad uma baana geyga Soomaaliyeed meel kasta uu yahay waa laga mudaharaaday waxa laga xanaaqay ama laga muraar dilaacay falka foosha xun ee lagu kacay gabadha yar yariista kubsasho kaliya ma ahayn gabadheer waxa loo cunay si bahalnimo oo wuxuushnimo leh marka ma dhigi kara Caasho inay u baahan tahay mudaharaad ama qaylo isku soo urur Caasho kaliya waxay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed inay cadaalad u hadasho uga diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Caasho waxaan leeyahay samiriya ilaahay aan idinka siiyo waxaanu leenahay haddaan nahay dadka deegaanka ku nool gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buuhoodle dadkii falka wuxuushnimada ee xun geystay in cadaalad la hor keeno qeyrkeedinay dhaafta iyo ku dhaqan hadaf bay lahayd wax kastoo ay ku dhiiran jirtay wax kastoo ay ku dhaadan jirtay qabriga waa taa dhaxtaa iyadoo weligeed qof dhiman rag baa hilibkeeda dhilay iyagoo haweenka Soomaaliyeed loo geystay tacdiye kala sida dil iyo kufsi ayayna wax xuquuq ka helaan dawladaha Soomaaliya ka jira waxaan isweydiinaa talo haweenka goorma ay helaan xuquuqda ay siisay diinteena Islaamka Najma Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Bulsha TV magaalada